Okay, markaan waxaynu ka hadli doonaa farqiga u dhexeeya order iyo degree maadaama aynu kasoo hadalno videoga hore farqiga u dhexeeya partial iyo ordinal. haddana waxaynu ka hadli doonaa farqiga u dhexeeya order iyo degree. Order highest differential coefficient in the present equation. Order differential equation marka la joogo waa highest differential coefficient ku dhex jira equationkaas. Mathalan ba micnaha differential coefficient waxaa la lahaa dy of dx. wax ay wataan orderka ay wataan haddii square ay wataan haddii ay wataan waxaa la yidhaahdaa cubic hadday wataan order waxaa loo yaqaanaa inta shaygan uu la derive karo micnaha oo haddii first order uu yahay waa sidaan, haddii uu yahay second order waa sidaan, haddii uu yahay third orderna waa sidaan. Okay, marka waa isla fahanno. Marka aynu ka bixino example examplekeeda wuxuu noqonayaa first example wuxuu noqonayaa dy of dx square equal 1 plus x square divided by 1 plus y square. hadda shaygan orderkiisa inta jeer shaygan la derive karo waa 2 jeer. marka koowaad marka la derivo first order marka la derivo mar labaad haddana second 2 jeer ayaa la deriva. marka orderkiisa ayaa wuxuu yahay maxaa la yidhaahdaa second order. wuxuu ku jiraa derivative-ka labaad. example kale waxaa waaye dy of dx equal 1 minus y square divided by 1 minus x square. marka shaygan hadda orderkiisa hadda waa 1 waa micnaha dy of dx kan orderkiisa waa 1 uu qarsan yahay. marka wuxuu joogaa maxaa la yidhaahdaa first order. Okay, marka order saas waaye. degree hadda ka hadlayno. degree of differential equation highest derivative after removing radical sign and fraction. micnaha derivative-kan oo meesha ku jira markii oo laga saaro radicalka iyo fractionka wixii soo baxa waxaa loo yaqaanaa degree oo ah highest degree. Okay, example waxaan ku qaadanaynaa example tusaale ahaan cos x dy of dx square plus sin x dy of dx whole square plus 8y equal tan x. so highest degree ku jira equation-kan waa 2. macnaheeda waxaa la fiirinaa equation-ka oo entire equation. haddii meeshan in case uu ku jiro degree kale uu yahay 3 highest degree waxaa noqonaya equal 3 ay noqonaa. equation-ka oo dhan ayaa la fiirinaa. example-kan hadda aynu eegno dy of dx whole square plus cos x dy of dx of 3 plus 8y equal cos x. hadda marka kan degreegiisa sana wuxuu noqonaa 3 noqonaa maadaama uu yahay highest degree. highest degree equal to in case haddii uu meeshan uu yahay sana whole square of 4 degreegiina wuxuu noqonaa 4 noqonaa.